السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتدى هالكم فرددا يدل تلياشا يا حلدبانكا انت بقى بان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan oran kaliya inaan galo qaybtan Chidoronka Derbetiefta dhibaatooyinka caasimada ku haysata dhamaan ciyaal xaafadka magaalada Hargeysa wax ka booba suuqyada magaalada dhamaantood waxay kamid yihiin way ku soo hoos dhuntaan oo daroogada la cabaan marka waxa weyn qaarna waa Ethiopian qaarna waa Soomaali ma fahantay habkii sharciga iyo booliskuna uma leh ina yar baan arkay maalin dhoweed anigoo afayeenkii Derbetiefta oo la dakhray oo nabar loo geystay oo muwaadina oo iri wasaaradii miisaaniyadda qaranka arrimaha bulshaduna xuquuqdayadiiba nalaga cunaya nabarna waa igu yaala way dakhray dhaawac muujintiina layma goyno waa la ii diiday halka xalay marna dadkaas maxay isticmaalayaan buluud bay isticmaalayaan dadkaas waxay isticmaalayaan kiniin xabag bay isticmaalayaan kiniin way xashiishada laftigeedu way imanaysaa markaas way cabayaan kooste markuu ilmihii daraagiska cabo isaga doonanaya xashiishadii ilaa khamriga ilaa waxa soo dhan aniga kamid ahaa cabay waxaan oo dhan oo soo dhameystay way yani say noloshaada ahayd markaa noloshaydu taxadiyadii waxa weeyaan magaalada Hargeysa muddo aad u badan baan joogay waa muwaadin baan ahay khamriga iyo xashiishadaba intaba waan cabay way waxa weeyaan Djibouti baan tagay Puntland baan tagay waan soo waayay arkay naftaydii waxay noqotay naf saad u tagtay maxaa balwada ku geysay balwad bay geysay ila carartay soo fahmin marka waxa weeyaan balwadii ila carartay halka ay geysay markaan wadankayga dhibaato aan ka gaajoodo caawa hadan qado habeen dambe waxa laga yaabaa inaan ilaahdo war balwadan cab naftu ay tidhaahdo moogti oo de waxa la nafaan ahay dheelido dhantaal iyo ciil qabto intuu dhaawacay waqtigu darbaaxada waayay iyo durufuhu dhalan rogeen dawladii Soomaaliland ilaa nimanka sadaakiisha Ilaahay weydiinaya culimaduna dar alla nagu ma hadlan iyaguna way ku jiraan way aakhiro Ilaahay waa weydiinaya marka miisaaniyadii iyo duruuftii ay tirto iyaguna ay xaragoonayaan maxkamadii xeerka dastuuriga ahayd iyo booliskii ilmihii intay dib u soo xidhaan ay saldhiga keenaan ay idhaahdaan iyagoon dambiba ku haynay saldhigi ku xidhaan niman yar oo askar oo bilayso oo kuliyada ka soo baxay ayaa la leeyahay waa aqoon bulay no aqoon male because aqoontu leeyahay bal hal sheego aqoontu leeyahay leedahay barseer iyo sitam way aragnima ayaa aqoon lagu kuliyada uga soo baxay anigu wax aqoon ma arko because inankii aqoon buu qaadanaya ilmo yar buu dariiqa ku dilaya oo xabagla askarigi way waxaan doonayna ku weydiiyo halkay ka soo gashaa balwada khamriga iyo xashiishadu halkuu idin ka imaada wuxuu ka imaadaa waa Ethiopia ma idinka halkuu idin ka imaada marka idinka laga hadlayo ilaa ashxaas baatina sidoo waxa weeyaan habkan ay khamrigan iyo waxaan lagu helayay ay daroogiska u cabayaan uu yaalay oo loo helalaya qaabka noo sheeg iyaga doonanaya way goobihii lagu iibinayay bay ka doonanayaan lacagtan ay ku soo shaqaysteen ay ama baalashlaha shaqaystaan ama doxyada baraha ka gurtaan goobihii bay tagayaan midda labaad iyaga bool anigu dawlad ma yihi shicib baan iyaga u tala waxaan waa sir weeyaan ma fahanti aakhiraha ay dhaadhicinina marka ininku laftigiinu de waxa weeyaan inaad gashaan baa iniga baahan anigu sirta banaanka degi maayo ma fahanti ha way waxa ii sheegtaa waxa ii sheegtaa bal cabitaankii maskaxdaada iyo waxa marka cabaysay dareen sidee maxaa dareemaysay balba dadka la wadaag de waxa weeyaan murugada iyo dhibaatada tirta marka daroogadaada cabayso murugay ku galinaysaa iyo nolol aad u wanaagsan oo adigoo xitaa gaajoonaya ayaad cabaysaa kabacdi markaad cabto xabagtii ama khamriga ama xashadii dhul macaan bay ku tusaysaa kabacdi waxaad dareemaysaa adigoo koob shahaba hayn inaad qofka labisanay magaalada maraya inaad boobto way cabsidaas dadka qofkina cabsi bay geliya habeen walba waxaan galaa imika isha boorama da waxaan arkaa dhalinyaro yar oo sarqaansan heer waxa la gaaray xabagtii lagu daro kiniin tiindar yar lagu daro la isku walaaqo ma faanta caagad lagu shubo la cabo midiya faashas inta la lagina weysidaan amnigiina way sheeganayaan because maxaa dawladda markay amni haysato waa ina barseerkayga iyo sistamkayga way aragnimo xogta igaga Ilaahay akhri weydiinaya waa laba way ya ma iska daysimisay imika anigu waan daayay anigu Ilaahay baan bariya xasbi Allah wa ni'mal wakiil dadka Soomaalidu milgahooga iyo sharaftooda ay Ilaahay ii barakeeyay Soomaal fahmin alxamdulillah wax daroogo oo isticmaala habeeraatay ma jirto maskaxdaydiina way nasatay ma ku badantay dhalinyarada wadanka mise way macquul oo waa dhaxdhaxaad sidee dhalinyarada ku tahay baashan dhalinyaradani waxa weeyaan horta qaarna waa ciyaal xaafad qaarna waa Derbetief marka way iskugu jiraan laakiin kuwa guryahooga ka imanaya isla kuwan bay intay cadaadiyaan lacagta ka gurtaan oo inanka xabagta caagada iibinaya ama xabaglahan ka iibinaya ama
ciyaal xaafadka laftigoogu jirdil bay ku sameeyaanoo kabacdi waxay goobtii bay tagaan